kulanti wanaagsan daawadayaal waa mar kale iyo barnaamijkeennii falanqaynta warbixinaha dhinaca diblomaasiyadda iyo wararkii ugu dambeeyay dunida waa 28 November ama bishii 11aad 2018 waa maalinimo Arbaca waa mar kale barnaamijkeennii falanqaynta dunida iyo warbixinaha dhinaca diblomaasiyadda daawadayaasha qiimaha intaan warbixinaha qaybta labaad aan gelin runtii qaybtan waa qaybta labaad hore ku sheegay waxaan jecelahay maalinta Jimcaha hadii alla idmo anagoo sidoo kale isku day doono inaynu soo deyno dhamaan afkaartii inta badan afkaartii dadkii jimcihii hore oo aad inoogu batay wixii aan ka gaari karno aan jimcaha ama ku soo dari doono laakiin sidoo kale waxaan jecelahay inaan falanqayn xoogan ku sameeyno laba qodob oo miiska noo saaran ta ay markaas idinku u codeysaan anagoo jecel inaan mar walba bahda Hurufadhi Media nala daawata oo runtii dadkeena Soomaaliyeed ee sida weyn iyagu caalamka haatan u fahmay mararka qaar koodna sida u falanqeynayaan kadib markana codadkii aan dhageysanay jimcihii hore aad laba yaabi sidoo runtii qaar kood naga horeeyaan waxaan jecelahay anaguna inaan mar walba idisiino talageliyada isla markaana ixtiraamkiina aad naga mudan tihiin iyo sharafta noo haysanana mid ka badan aan idin hayno maadaama ummadda Soomaaliyeed ay yihiin dadkeenii runtii aan doonayno inaan la wadaagno iyaguna in la wadaagaan waxna is dhaafsano adduunka wax la is dhaafsadaa aqliga iyo waxa la yiraahdo intellectual property-ga waa la is dhaafsadaa ayadoo raali la soo yahay marka waxaan jecelahay inaad kala doorataan hadii alla idmo maxayno qodobada aynu ka hadalno dhinaca falanqaynta iyo xogo aynu ka soo ururino arinta Ukraine iyo dalkaasi Russia xiisadan haatan ka soo cusbanaatay iyo waliba halka ku dambeeya karto sida aad aragtaan iyo qodobka kale Israa'iil iyo dhaqdhaqaaqeeda xoogan ee gobolka Bariga Dhexe iyo waliba caalam islaami ka dhex bilowday siyaasadaas iyo cidda dabada ka riixaysa miyaa rabtaa inaad ogaataan sababee isla markaana tibax qodobada aad u baahan tahay inaynu runtii si gaar ah u xusno ama u soo baadhno isla markaana aan jawaab ka keenno qaan ku siqo wararka iyo warbixinaha dhinaca diblomaasiyadda guddiga islaamka ama ururka islaamka OIC u qaabilsan ganacsiga caalamka iyo la socodka suuqyada waaweyn ee dunida ayaa warbixin aad yaab u leh isla markaana soo jiidasho xooggan wadata gaar ahaan dadka ganacsatada ah ayaa arrintan aad iyo aad ugu fiican tahay ayaa waxay iyo waliba dadka waliba wax iibsanaya ee xogaaga lacagta haysta haddaad guriga iibsanayso haddaad yani dalalka waliba degan tahay qarbiga iyo waliba arrimaha kale ee la xiriira ganacsiga la furanayo ee ka tahay xalaalada ay kamid yihiin ayaa waxay soo saareen warbixin aad iyo aad loo yaabay waxayna sheegeen in 7 trillion uu gaarayo ganacsiga xalaaloobay ee caalamka taasoo ah lacag aad iyo aad u badan waxaana la sheegay warbixintan in boqolkii sane ee ugu dambeeyay heerka ganacsi ee caalamka ee xalaasha waa xalaasha waxa loola jeedaa waa ganacsiga haday tahay bankinka ama bangiyada guryaha real estate-ka cuntooyinka sharaabka warbaahinta xayasiiska wax kasta oo ganacsiga ku saabsan labiska iyo dharka ee xalaasha ah ee waafaqsan shariicada islaamka haday xagga guryaha ay tahay aysan lahayn dulsaar waxa ribada loo yaqaan dulsaarka bangiyada aan dulsaarka lahayn ee akoonadooda aan dulsaarka qofku iska furo karo akoonkiisa isla markaana wixii ugu jiraan wixii aan ugu jirin uu ka maran yahay xagga haday tahay deyn qaadashada oo qofku intuu deyn qaato deyntii uu lagu leeyahay wixii aan loo laabaynin sida quraanku sheegayna xaraan ay tahay in la laabo waxayna sheegeen in arintaasi ama isfahankeeda ay horumar weyn ka sameeyeen dunidu kadib markii ay ogaadeen in dadka muslimiinta ay aad iyo aad u yihiin dad ganacsiga aad ugu wanaagsan shirkado waaweyn oo ay kamid yihiin bangiyo kuwa kamid ah kuwa cuntooyinka soo saara kuwa hilibka sameeya iyo kuwa waxa la yiri ka ganacsada guryaha ayaa dhamaantood waxa ay ogolaadeen baa la yiri inay qayb ahaan ay waafajiyaan baa la yiri shariicada islaamka iyo sida dadka islaamka dhaqankoodu uu yahay waxa ay ku ganacsanayeen Yunis Eid oo ah gudoomiyaha gudiga la yiraahdo ama soo qaban qaabiyay shirka dhacay dalkaasi Turkiga oo la yiraahdo The World Halal Summit ama ururka ama kulanka xalaasha ee adduunka ayaa waxa uu sheegay in ay kor u kacayso maalgashiga xoogan ee dadka muslimiinta ay ku sameeyaan dhammaan laamaha kala duwan ee dhaqaalaha hadii ay kamid tahay guriga iibsashada oo ay qaadanayaan guryo markaasi xalaala hadii tahay ayuu yiri meelo ay furanayaan oo ah dukaamo xalaal ah oo helayaan ayuu yiri inay ku iibiyaan badeecooyin xalaal dhamaantood ah oo waafaqsan ayaa la yiri gowraca islaamiga iyo waliba waxa la yiri sidoo kale waxa la yiri dhar iibsiga iyadoo waxa la sheegay in shirkadaha waaweyn ee dharka sameeya ee caalamka ugu waaweyn ay kamid tahay Nike iyo waliba shirkado kale ay dhamaantood soo saareen baa la yiri dhar markaasi astron oo gabdhaha xataa sportka ciyaaraya iyo waliba waxa la yiri wiilasha ay heli karaan ayaa la yiri dhar ilaa looga jooga halka gabdhuhuna madaxooda qari karaan iyo
waliba goonooyin ay heli karaan ayaa lagu sheegay warbixinta sidoo kale waxay sheegtay in marka la eego tan iyo 2015 ilaa hadeerto ay u muuqato lacagta laga sameeyay dhinaca sida xalaasha loo sameeyay ay sameeyeen ayaa la yiri ganacsatada muslimiinta ah ee la ganacsanaya kuwa markaasi aan muslimka ahayn iyo waxa la yiri ganacsatada gaalada ah ee la ganacsanaya dadka muslimiinta ah ee ayaguna ganacsigu u dhaxmaray u gaarayo 7 trilyan ayadoo la sheegay in sanadka 2021 ay intaas iyo in ka badan ay sii dhali doonto ururka la yiraahdo Organization of Islamic Conference ayaa waxa ay sidoo kale sheegeen inay ololo xoogan arintan ay ka galeen gaar ahaan gudiga la yiraahdo gudiga dhinaca ganacsiga ee xalaasha ah iyo u dadaalista waxa la yiraahdo halal accreditation agency la yiraahdo oo xaq loo soo gaabiyo ayaa waxay sheegeen in ay dunidooda ku qanciyaan maadaama dad badan oo muslimiin ah caalamka galbeedka iyo qarbiga aad u joogaan in la fududeeyo isla markaana loo ogolaado dadku in ay sida ay dhaqankoodu yahay ay wax u gataan isla markaana wax u dhigtaan isla markaana ay wax u dhitaystaan oo iyadoo la sheegay in la marinayo dhinaca shuruucda islaamiga oo runtii aad iyo aad u soo faafaya waxa sidoo kale sheegay in bangiyo badan xataa ay qaateen bal nidaamka islaamiga horeyna dalkaasi Britain ayaa khubro ka tirsan waxa ay dhowr sano ka hor soo saareen warbixin ay ku qiimeynayaan habka dalalka ama shariicada islaamka ee ganacsiga u jideysay ayaga oo khubro waaweyn oo xataa ay ku jiraan kuwa kaniisadaha ay ku taliyeen in dhinaca ganacsiga laga qaato islaamka isla markaana lagaga daydo ayagoo sheegay in sida kale oo dhan ay dadka shacabka ay ku dhacmayaan ayadoo qofka marka uu wax ama hadana lacag dul la saarayo markaasi uu guri ama hadana dulsaar baa la saarayo weligiiba qofka ka dhamaamiso qarash un baa lagu leeyahay qofka oo lacagtii un baa lagu sileeyahay hadii xataa qofku uu biilkiisa ilaawo oo runtii hadii uu ku heshiiyo in kowda bisha uu iska bixiyo lacagta qofka hadduu xanuunsado ama uu iska ilaawo bini'aadam leeyahay waxa fuulay wax la yiraahdo late fee ama wax loo yaqaano inaad bixiso lacagtii oo la soo daahday ama dib u dhac wax la yiraahdo dib u dhac aad iska bixi lahayd lacagtii laga rabay waxyaalahaas oo dhan waxay ku nisbeeyeen waa khibradaas aan muslimiinta ahayn waxay ku nisbeeyeen wax lagu dhacayo hantida dadka waliba ku danyarta halka nagala socdaan warfadhi media wararkii ugu dambeeyay dunida iyo warbixinada cadmaasiyada Facebook ayaa lagu eedeeyay isla markaana waxaa la ogaaday in uu ogaa dhaqdhaqaaqa ruushka uu waday isla markaana uu ku doonayay inuu ku meersado xogaha dadka gaar ahaan kuwa dalalka qarbiga Mareykanka iyo Britain ha weynaadeen gudiga arintaas gacanta ku haya ee baarlamaanka dalkaasi Britain ninka hogaaminaya ayaa xog uu soo bandhigay waxa uu sheegay in cilaaqaadka iyo dhaqdhaqaaqa ay ka wadeen shirkadaha dhinaca xatooyada qaabilsan ee qalabka dhinaca tiknoolajiyada adeegsanayay ee dalkaasi Russia iyo dhaqdhaqaaqooda ay ogeyd Facebook baa leeyahay tan iyo sanadkii 2014 isla markaana aysan waxba ka qaban dadkan aysan ka waabin ayadoo lagu jiray dhageysi warbaahinta dhan u furnaa ayaa ninka la yiraahdo Damian Collins waxa uu soo xigtay barnaamij arintaasi ogaaday oo laga leeyahay dalkaasi Mareykanka oo horey ugu dacweeyay dalka Facebook in uu dalka Mareykanka iyo dadka xataa caalamka dhan jooga ee Facebook isticmaala xogtooda la xadayo kaasoo la yiraahdo 643 shirkadda la yiraahdo 643 ayaa barnaamij ay samaysatay waxa ay ku soo bandhigtay emailo ay direen ama isku direen madax ka tirsan Facebook oo ay kaga hadlayaan walaaca ku saabsan dhaqdhaqaaqa ka soconaya Facebook dihiisa iyadoo la sheegay in Facebook injineeradoodu ay haba yaraatee arintaas markay ogaadeen October 2014 ay isku mahadiyeen isla markaana isku qanciyeen inaan waxba loo bixin isla markaana raashka la shaqeysto oo ruushka loo aaminsan yahay inay lacag xooggan ay siiyaan Facebook waxaa sidoo kale la sheegay in kadib markii injineerada dhinaca waxa la khibrada dhinaca markaasi cyberka ama dhinaca internetka waxa loo yaqaan cyber security experts waa dhinaca amniga internetka oo dadka ku takhasusay inay wax ka qabtaan ayaa waxa la yiri inay ogaadeen in APU ama markaasi sumado dhinaca markaasi ay leeyihiin baa la yiri Russianka oo ah kuwa basaasay dadka basaasaya ay la baxeen baa la yiri 3 bilyan oo xog ah oo dadka Facebook isticmaala ah oo u badan kuwa qarbiga ayadoo la sheegay in Facebook arintaas uu san wax ka qaban arintan ayaa waxa ay ahayd waxa la yiri dhaqdhaqaaq xoogan oo dambi isla markaana waxa ay ahayd baa la yiri mid platform-kan ama shirkadan ay u badheeday inay arintaas qariso waxa la sheegay in arintaas hadii ay sidaas u cadaato in Facebook
in maalmihii la xiri lahaa ay wax yar ka harsan yihiin sida uu ku hanjabay ninka markaasi xogta ka jeedinaya baarlamaanka dalkaasi Britain sidoo kale waxaa ka soo qayb galay dhageysigan baarlamaano kale oo ka socda dunida oo dadkoodu dhibanayaal u yihiin waxa Facebook uu sameeyay iyada oo xubno sharci dejiyaal ee ka socda baarlamaanada dalalka ay kamid yihiin Argentina, Brazil, Canada, France, Ireland, Latvia iyo Singapore ay kamid ahaayeen dadkii markaasi arrinkaasi iyaguna walaacooda ka jeediyay iyadoo ninka la yiraahdo Charlie Angost oo ka yimid dalka Canada gaar ahaan aqalka la yiraahdo The House of Commons ka dalkaasi Canada ayaa wuxuu yiri marka aynu iska baashaalano ee aynu isticmaalano ayuu yiri telefoonadeenna iyo aababka ama barnaamijyada aababka ah inoogu jira ayuu yiri Facebook baalka telefoonkeena wuxuu yiri dimuqraadiyadeena wuxuu yiri waa la dabagedinayay asagoo waxaan arrinta dabagedinta ka dambeeyay buuri wiilka bilyaneerka ah buuri ee ku raaxaysanaya magaalada gobolka California ee dalka Mareykanka oo la jeedo Mark Zuckerberg oo ah madaxa Facebook ayaa haatan waxaa haysta walaaci ugu weynaa iyadoo oo markaasi lagu eedeynayo in uu aad dhibaato xooggan ugu sameeyay dadka daawadayaasha qiimaha leh qodobka ugu dambeeya dawladda dalkaasi Yemen ayaa waxa ay diiday hindise kooxda Xuutiyiintu ay ku ogolaatay in magaalada Xudeyd ee xeebta lagu wareejiyo gacmaha qaramada midoobay isla markaana dagaalka halkaasi ka soconaya laga joojiyo war qoraal ah oo ay soo saartay wasaaradda dawladda dalkaasi ayaa waxa ay sheegtay oo ku saxanaa wasiirka golaha wasiirada ee dalkaasi Yemen ayaa waxa uu sheegay in arrintan ay tahay ayuu yiri wax ay doonayaan inay kooxdan ay kaga baxsato dagaalka culus ee haatan soconay hase yeeshee kooxda Xuutiyiinta ayaa heshiis hordhaca oo ay saxeexday waxay ogolaatay in ay qaramada midoobay lagu wareejiyo gacan ku haynta Xudeyd balse waxaa la sheegay in ay ku xidhay hal shuruud oo ah in dhaqaalaha ka soo baxa dekada Xudeyd lagu badacas ku taal lagu soo shuba bangiga dhexe qaranka oo xaruntiisu ay tahay magaalada Sanca ee xarunta dalkaasi ama caasimadda dalkaasi Yemen oo ay ula jeedaan in uu yahay bangiga dhexe isla markaana iyagu ay gacanta ku hayaan wasiirka ayaa waxa uu sheegay wasiirka dawladda dalkaasi u hadlay oo la yiraahdo Maxamed Al-Amiri ayaa wuxuu yiri Xuutiyiintu waxay xatooyo xooggan iyo dhac ku hayeen ayuu yiri dhaqaalaha qaranka iyaga oo ka faa'iideysanaya 4 sano ee ugu dambeysay ayuu yiri gacan ku haynta ayuu dekada magaalada leh ee Xudeyd sidoo kalena waxay wadeen buu yiri dhaqamo dhinaca badbaadnimo argagixin ayuu yiri marinada caalamiga ah biyaha iyo inay galaan dambiyo wuxuu yiri waaweyn oo ay kaga faa'iideystaan buuri deeqaha ay qaramada midoobay keento oo qaarkood ay la wareegaan kadibna ay gataan ayuu yiri wuxuuna sheegay in ay tan ka dambeysay dagaalka culus ee ka dhacay wadada weyn ee la yiraahdo Al-Khamiis taasoo la sheegay in ciidamada dalkaasi Yemen oo taageero dhinaca cirka ka helaya ku xulafada Saudi Arabia ay garaaceen dhanka kalena dawladda dalkaasi Saudi Arabia amiirka u fadhiya magaalada ama ahna safiirka isla markaana amiirka ee u fadhiya magaalada Washington ee xarunta dalkaasi Mareykanka Amir Khalid bin Salman oo la walaala Maxamed bin Salman ayaa waxa uu sheegay in ogolaanshaha kooxdan Xuutiyiinta ay ogolaadeen inay magaalada wareejiyaan ay ka dambeysay ayuu yiri cadaadiska dhinaca siyaasadda iyo dagaalka kulul ee lagu garaacayo ayuu sheegay wuxuuna sheegay in hadii la doonayo in gul siyaasadeed iyo heshiis siyaasadeed oo xabad la'aan laga gaaro halkaasi in adduunka oo dhan uu tuuteeyo dalka Iran oo iyagu dabada ka riixaya ayuu yiri kooxdan wax xarbuda isla markaana la sheego la keena ayuu yiri miiska wada hadalka Iran lafteeda kadibna lagu khasba ayuu yiri inay ka joojiyaan dhibaatada halkaasi hase yeeshee kooxda Xuutiyiinta waxay sheegeen inaysan ka bixi doonin magaalada Xudeyd hadii aan la saxiixin in lacagtaasi lagu soo wareejiyo ayaa la yiri dawladda dalkaasi magaalada ku taala dalkaasi ee xarunta ah ee Sanca bangiga dhexe ee qaranka daawadayaasha qiimaha leh amaanal